بسم الله الرحمن الرحيم weli waxaa imtixaano nooca casharadani ku saabsanaa Windows-ka maanta waxaan casharkeenan ku bixinaynaa waxa weeye how arrange a desktop sidii shaashada desktop-ka aad u arrange gareysan lahayd oo u habaysan lahayd waxaad arkaysaa meelaha qaarkood ama dadka qaarkood hadda shaashadan waxaa ka muuqda in yar baa ka hartay mid waxaad arkaysaa ka koona ee documenti saaran yihiin sida u saaran yihiin hadda hortaada ka muuqda waana wax laga fiican yahay weeye xaqiiqdii waxaa u baahan tahay marka sida u arrange gareysan lahayd ugu horeyn waxaa tallaabada koowaad qaadaysaa ay tahay marka hore inaad aasaasto folder guud oo aad ugu talagashay documentiyadan iyo waxa kan meesha yaala ka muuqda dhamaantood inaad ku shubato haddaba waa bilaabayaa ila daawada right click baan iri new folder baan tagayaa waxaan leeyahay click folderkaas ayaa ii soo baxay new folderka ah magac baan u bixinayaa magacaas oo ah all data desktop all data desktop baan u bixinayaa kadibna right click anoo haya ayaan dooranayaa inta shay aan markii qaadi karo hal mar 4-5 shay waa isla qaadi karaa waa dul geyn karaa anoo ku haya gacanta waa ku sii daayay haddaa gudihiisa fiiriso dhowrkaa shay baan keenay soo ka noqo markaan xiro for example ko waxaa jira documenti aan waxyaalo aan la qaadi karin baa jira aan documenti ahayn for example hadda WhatsApp menugan laakiin waxyaalahan kale oo dhan xabadna waad u qaadi kartaa waa geyn kartaa oo ku ridi kartaa sida caadiga ah sida dhammaan highlight intaas saartidna sida ugu jidaado right click ayaa ku jid tan soo qaad oo ku shub all this one is documents all this one waa documents ku shub saa ugu arrange gareyso oo kala qurxiso desktop-kaaga dhammaan documentiyadan qaar waa foolxumo nin weyn oo computerku adeegsanayay dhammaantiis ay buuxsameen desktop-kiisu iska habeey qaanadaas kaga shub weli waxbaa haray qaad kulli kan soo qaad ku rid kan qaad ku rid kadibna waxaa leedahay by item halka quruxda hadday sidaa shaashadu iyo hadda labay kala tahay marka ugu horeysaba waxa fiican qofku inuu arrange gareysto documentiga markuu ku bilaabayo folderku wax dhiganayo badanaa dadku inta badan waa iska caajislo oo desktop-ka jecel yihiin inay wax dhigtaan laakiin asal waxa ah documentigu in my document la dhigto for example halkaan tagaysaa my document naftigeeda ayaa waxaad ka dhex aasaasanaysaa folder ku gaara mida ugu talagashay for example right click c waxaad tiraahdaa folder waxaad leedahay image ama photo folderkaas waxaad ugu talagelaysaa photo kaliya inay gasho aan wax kale aadan ku shuban folderka aad samaynaysaa waxaad u bixinaysaa videos for example videos marka folderada tan hadda aan abuurayno video photo kulli waa ku shuban kartaa waa meesha asalka u ah in wax lagu kaydsado adoo folder u sameynaya
folder guud oo iyagoo dhan ay ku wada jiraanna waa samayn kartaa. right click baa siinaysaa, folder baa samaynaysaa, waxaa leedahay all my data, my data labadii folder ee aan samaynay ayaan qaadaynaa, data dhex gelinaynaa, footona qaad, data dhex geli, soo furfurt my data. waxaa ku abuuran folder yiraahdo photo, video, waxaa kaloo ku dari kartaa mid saddexaad, mid afraad, mid shanaad, mid lixaad. waxaan ku darayaa marka mid kale oo ah folder yiraahdo family. waxaan ku darayaa folder kaloo yiraahdo, waan sameynayaa my office ko kale, xafiiskayga. documentska waa in la kala duwaa, maaha documentsku inuu wax isku dhex yaacsan yahay, waa inuu ku arrange garaysan yahay, mid walba meesha ugu hagaagaysid waa inaad garanaysaa. office document. haddaan guud ahaan fiirino waxa weeye waa hal folder oo waxaa la yiraahdaa my data. haddaan sii furno muxuu ka kooban yahay family, office, photo, video, bla iyo intaa in la eg. marka waxa wanaagsan qofku marka uu computerka sidiisaba isticmaalayo, computerka inuu wax badan uu ka yaqaano Windowska. kaliya maaha inuu hadda Windowsku weli waa socda casharadiisu taxano weeye, laakiin waxaan ugu talagalay dad badan baa waxaan ku arkay dokumentiyo tiro badan oo desktopkiisa ku yaacsan sidii casharka bilowgiisa aan ku arkaynay. halkan naftigeeda desktopka dad baa jecel, waa ku samaysan kartaa folder si gaar ah, ama folderkii aan my document ku soo samaynay waa soo rarin kartaa oo waa la imaan kartaa. my data click baad siinaysaa, waa soo jeedaysaa, desktopka dhiganaysaa. hadda halkan waxaa weeye waxaan banaanka keensaday my data folder, waa kana. haddaan sii furo waxa kusii guda jira intii aan samaystay. marka isku day inuu ahaado computerkaagu mid shaashadiisu ay tahay mid nadiif ah mar walba. isku day mid computerkiisu yahay dokumentiyadiisu inay hagaagsan yihiin oo qurux badan yihiin. yaysan kaa noqon computerku shaashadiisa desktopka adeegsanaysid mid dokumenti ku yaacsan yahay oo qof walba ay arki karo. ha ahaadaan waxaagu wax urursan oo kuu sir ah, ha ahaadaan wax folder aad u adeegsatay oo aad u samaysatay. waxaan kula talinayaa dhammaan inta taqaano way taqaan, intaan aqoonna waxay ka arki doontaa videogan. qof kasta oo computer leh waa inay wixiisu u urursan yihiin. xataa mararka qaarkood computerada crash baa ku dhaca, way xumaadaan. dokumentiyadu markay sidaas oo kale u urursan yihiin xal baa loo helaa oo badanaa waa la helaa oo dadka aqoonta u leh isla markaba waxay soo heli karaan datadaadii oo kooban oo meel taala oo si qurux badan oo nidaamsan u diyaarsan. laakiin marka waxaa iska kala yaacisid computerka meel walba wax iska dhigtid, desktopka iska qashin document kasta iska dhigtid, documentiga aad desktopka dhigtid meel kale tagi maayo, wuxuu tagayaa uu ka mid ahaanayaa local diskiga aad isticmaashay storage-kaaga. haddana waa inay ahaadaan wixii wax qurux badan. aad baa mahadsantihiin dhalinyaro, soo dhawaada. markasta waxaan jeclahay inaan idinla wadaago intii aan idin dhaamo oo aqoontayda ah. aad baa u mahadsantihiin. la socda casharada taxanaha ah ee ka baxa barnaamijkan YouTube-ka. thank you very much. waxaan aad idinka codsanayaa subscribe-ta, like-ta, comment-iga, dhammaan intii laga bixin jiray inaad ka bixisaan. guul iyo gobonnimaan idin rajaynayaa. waa mahadsantihiin.